laascaano waxaa maanta soo gaadhay suldaanka guud ee beesha gari koombe suldaan cali daahir axmed maxamed faraweyne oo xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dibaddiisa wafdi isugu jira cuqaal xildhibaano iyo ciidamada difaaca SSC ayaa uga hortagay kontaroolka maraaga ee bariga magaalada laascaanood waxaanu maanta soo dhaweynaynaa suldaankii guud ee beesha gari koombe ee sool iyo saraag yaqiin ama SSC khaatumo anoo ah xildhibaankii gari koombe waxaan ku soo dhaweynaa halkan suldaanka iyagii gari koombe insha Allah taala suldaan ku soo dhawow bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd alhamdulillah ilaahi maanta igu simay laascaanood oo xor ah yaan ilaahay ugu mahad celinaya mahadda labaad bulshada waxaan u mahad celinayaa bulshada ku dhaqan sool sanaag iyo cayn iyo hiil harti dhabar adayga ay u dhabar adeygeen 9 bilood ee joogtada loogu garaacay madaafiicda iyo weerarada joogtada ee u dhabar adeygay ayaan iyo ciidamada hiil harti iyo khaatumo oo iyagu awood ku difaacay deegaanka kagana saaray maxay ahaaytay ciidamadii deegaankan xoogga ku haystay waxaan kale u mahad celinayaa maamulka cusub ee ilaahay ku guuleeyay in ay hadafkii ugu horeeyay waajibkii ugu horeeyay inay gutaan taasna ilaahay baan uga mahadinayaa laba qodob baan ka hadlayaa hadda waxaan ka hadlayaa ciidamada ama maamulka SSC iyo hiil harti qodobkaas baan ka hadlayaa iyo maamulka Somaliland labada qodob baan doonayaa inaan ka hadlo qodobka hiil SSC khaatumo iyo hiil harti waxaan leeyahay waa inaad ku mahad ilaahay uga mahadisaan guusha ina solonsiiyay ina siiyay waa inaad ku fara adeegtaan waa inaad midnimada dhowrtaan waa inaad maxay ahaaytay meel uga soo wada jeedaan sidii aad isku duubnidii aad ku bilowdeen waa inaad hawshu waa inay ku socotaa tan kale dhibtii inaga laynagu hayay ee aan tirsanaynay inaan maanta inaguna inaynu iska ilaalino oo aynu maxay ahaaytay ka taxadarna ayaa loo baahan yahay guusha ilaahay ina siiyay inaan ku faraadayno in aynaan dulmigii laynagu hayay inaguna aynaan samaynin ee aynu maxay ahaaytay deegaankeena difaacano dulmina aynaan samayn taas halkaasan kaga baxaya tan kale ee maamulka Somaliland waxaan leeyahay waxaan annagu doonaynaa in aanu darisnimo iyo wanaag iyo maxay ku bedelno idinkana waxaan ka rabnaa xumaantii iyo wixii soo dhacay inaad wanaag ku bedeshaan baan doonaynaa nagama aha inaanu maxay ahaaytay baqayno nagama aha inaanu maxay ahaaytay waxaanu eegaynaa darisnimada iyo waxaan nahay iyo waxaan eegaynaa in aynaan dad kala maarmo aynaan ahayn oo wiliya aabihii iyo wiliya abtigiya ayaanu qiimeynaa midda aanu qiimeynaa inaad nala qiimeysaan baanu doonaynaa diyaarna waxaan u nahay dadkayaga inaan soo dhaweyno inaanan dib u geysanin inaanan xad gudbin ayaan diyaarnaa idinkana sidaas aan idinka doonaynaa waxaan doonaynaa in uu caqligu inuu shaqeeyaan doonaynaa maanta haddii hore maxay ahaaytay la waayay arrimahaas maanta in la helaa loo baahan yahay waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa tawfiiqda talada Allah inagu waafajiyo wixii dhintayna Allah u naxariisto wixii dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo waxaan halkan mahad gaar ah u celinayaa dhalinyaradii halganka bilowday ee ku dhintay ee dhagaxa tuuraysay ee brownka la dhacay ayaan halkan tacsi ugu diraya